qisada ugu dambaysa ee nabiga deeqsinimadiisa sallallahu alayhi wasallam aan ku tilmaamayno waa qiso cajiib badan oo qisadan yaani markaan akhriyaba anoo kaliya qoslaa waa qiso la yaab leh sahih muslim bay ku taala qisadu miqdaad ibn aswad baa yaa warinaya wuxuu leeyahay miqdaad aniga iyo laba saxaabi aniga laba saaxiib oo leenahay ayaa soo qaabilnay buuri marka waa rafaadnay gaajaan hayso waa rafaadsannahay maqalkanagi iyo aragganagi baa tagay waa daciifay waxba quman ma aragno maqalkanagu indha dhagahna wax quman ma maqlaan gaajada iyo rafaadkii dhibkana haysta dartii nabigaan u nimid sallam markaanu meeshii aan nimid saxaabadii u nimid فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان باللوني إن أندتك أبندقنا يعني إسو بندقنا وباهذا النذي الرفات كان هيستي وحي يعني وحوي فليس أحد منا يقبلنا عندنا قابل شبه وينيب إلا الصحابة يقلبتوا إنه وحيستبوا كويري عندنا سودة ويسو نقادو وحنا سيسو وان وينيب مركز النبي قوي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وانا كحي صدح ذا النبي وانا كحي كوريه سنة كحي gurigii haddaan tagnay saddex neef oo ariga ku xidhan saddexdii neef ariga ahaa ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ihtalibu hada labana baynana yaani saddexda neef ariga caana inooga soo lisa kuwa baynu wadaagaynaa fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insani minna nasiibahu waan soo maalnaa waan soo lisnaa kadibna nin walba qaybtiisu cabaa nabigu marbuu maqan yahay markaan soo lisno qaybtanada cabno qaybtii nabiga aan ugu talagalay waa u dhigi jirnay markaasuu xilli dambe habeenkii imaanaya asaga oo socda dadkiina seexdeen fayaji'u min al-layl habeennimadii wuu imaanaya fayusallimu tasliiman la yuqidu naa'iman wa yusmi'u al-yaqdan markuu guri la hurdo soo galo waa salaami jiray salaan cidda soo jeedana ay maqlayso ruux hurdana aan kicinayno hurdada ka kicinayno buu ku salaamaya assalaamu alaykum hadal yaraha يعني dhexdhexaadaho muxuu ahay kan soo jeedana uu maqlayo ka hurdana aan kicinayn kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam masaajidku iimaan jiray waa tukan jiray markuu salaad soo tukada kadib ayuu iimaan jiray markaasuu guriga markaasuu caanihii aan u dhignay cabi jiray sharaabkii cuntay caabihii buu cabi jiray habeenada kamida buu leeyahay miqdaad marka caanihii oo yaala intii nabiga aan u reebnay oo u dhignay oo yaala ayaa shaytaan ii yimid buu habeen طبعا يعني waxa uu sheekay qalbigiisu u sheekay aniguna intaydii waan cabay buu markaasuu shaytaanki wuxuu igu yiri buu war Muhammad ansaar wa Madiina ayuu guryahooda aadaya markaasay soo dhaweynayaan oo deeq siinayaan xaajadiisii iyo dantiisana halkaas uu ka helayaa muxuu ka badan uga baahan yahay bimaana wax weey guryaha kale ansaareed iyo saxaabadiisu ka soo dhargaya wax ka helayaa intan yarta ee caanahe ka badeed u reebteen muxuu uga baahaye muxuu nabigu ku falayaa sallallahu alayhi wasallam shaydaan baa iigu sheekay buu sidaas warkii shaydaanku ii sheegay baan qaatay buu yiri fa ataytuha fa sharibtuha intii yareed nabiga aru dhignay ayaan cabay buu waa ka fuuqsaday waa ka saaray falamma an waghalat fi batni intii yareed markay calooshaydi gashay buu oo ay calooshii aan ku hubsaday oo aan ogaaday buu yiri annahu laysa ilayha sabiil ana calool galay lagama soo saari kare inay tageen oo saa ku tageen markaan ogaaday ayuu shaytaankii qoomamay iyo walbahaar hadana ugu tuuray buu nadamani shaytaan walbahaar iyo walwal iyo murug baan la joogay wuxuu igu yiri buu hadana shaytaankii cabsiyay waay ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد ورهبار قبي ورمحات سميس ما وحوغاقي نبي يقول هذا عبتي فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك هو إيمان وحوغاقي مركو وينا وكو هباري وهذا هلاك سمي ويكون رمان نفتا إسوك يتمد وحوغاقي عانيه عبي علوشي كوسو علين كرو الشيطان والبهاري قليي أساقي عبسيي ee waswaasiyay hadana wuxuu leeyahay nabigi waa iimaano waxogaagii markuu waayana uu ku habaari doona maanta halaaga waa ku dhamaatay ya adduunyadii baa igu xidhiintay rafaaday fadahaba adduunyaaka wa adduunkaagii aakhirada maanta ay u dhamaatay adduuniya aakhirada maanta ay ku dhamaatay xageed geli doonta wa alayya shamlatun
mara yaroo gaaban baan qabaa buu yidhi markaan yani lugaha saaro oon qaar dambaha saaro madaxaygaa soo baxaya buu yidhi qaar hore haddaan saarana lugahaygaa bannaanay mara yaroo aan jidhkayga ku wada fillayn ayaan qabaa buu yidhi habeenkii oo dhan galgalo hurdo isga tagtay seexan waayey murug walbahaar waan gubtay labadaydii kale saaxiib iyagu waa iska seexdeen ileen iyagu dakana ma qabaano cidna wax kama ina cabine yani hurdadooday dheeraysteen anigi wuxuu seexan waay oo rafaad mar dambe ayaa nebigi yimi sal alla alay wasalam anuu soo jeedo galgalanayo hurdo waayey oo ila buu yidhi caawan baa lagu habaari doonaa nebigu waa salaamu yidhi kamaa kaana yusalli markuu soo galay assalaamu calaykum sidii caadiga u salaami jiray kadibna masaajidkuu galay uu soo tukaday waa yimid fa ataa sharaabahu wuxuu is yidhi meeshii uu caanuhu u yaaleen ayuu tegayoo cab buu is yidhi fakashafa canhu markaasuu weelkiibu dabool ka qaaday falam yajid fiihi shay waxba kuma jiraanba waa la cabbay ilaa ninkii baa ka fuuqsaday miqdaad hay farafaca ra'sahu ila asamaa markaasuu nebigu sal alla alay wasalam ayuu kor fiiriyey cirkuu fiiriyey madaxuu kor u qaaday cirkuu fiiriyey markaasaa waxaa idhi nebiga oo kor fiirinaya markaan arkay waxaan idhi al'aana yadcuu calayka fadalik walle hadda unbuu ku habaari doonaa oy kuu dhammaan doontaa soo nebigu weelkii intuu fayday wax ma waayin oo gacmaha ma taagayo oo muxuu ahay madaxa kor ma fiirinayo maanta unbuu ku habaari oy kuu dhammaan baan isir wuri nebigu sal alla alay wasalam dabcan sidii buu ku ducaystay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam allahuma atcim man atcamanii wa asqi man asqaanii ilaahu cuntii ciddii cunto isiisa cunto sii oo ciddii i waraabisa ilaahu waraabi nebigu sal alla alay wasalam waa ducaystay meeshuu miqdaad ka baqay aduu ku habaari doonaa nebigu isaga unbaa ducaystay ilaahu cunto isii oo cid i waraabisa isii oo ciddii cunto isiisa cunto sii oo ciddii i waraabisa cabitaan sii nebigu waa ducaystay sal alla alay wasalam ayib murugtii baa ka baxday ninkii miqdaad ahaa markaasuu wuxuu is yidhi walbahaarkii waa ka dhacayoo inaan la habaarayni waa soo baxdo habaarkii dhinac kale ducuu noqday hadda maadaama nebigii leeyahay ilaahu ciddii cunto isiisa cunto sii wuxuu rabaa inuu ducadan ka faa'iidaysto oo nebiga cunto u raadiyo oo uu ducadan helo nebigu ku duceeyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi markaasaan orday buu yidhi maraan qaatay maradii yaraydeen muxaqabay baan isku marmaray waa orday mindi baan qaatay mindidii baan la orday riyihii yarka ahay saddexda ah ayaan xaggooda u orday waxaan is yidhi teebaa ugu hili badanoo ugu cayilan midii muxuu ahay waan soo gowracay inaan gowracaan damcay markaasaa waxaan arkay inay muxuu ahay muxuu ahay caano leedahay tu kalaan is yidhi gowrac iyadana sidoo kale weel baan yaan raadiyey buu yidhi weelashii ka mida weelkii baan qaado markaasaan ku soo lisay buu yidhi caanii baan ku soo lisay markaasaa waxaan ka helay buu yidhi caano weelkii markaan ku lisay isagoo dhanba xumbo weelkii xumbaa ka kor martay nabigaan u keenay buu sal alla alay wasalam markaasaa waxaa idhi buu yidhi muxuu ahay asharibtum sharaabakum alleyla rasuulkaan u imid nabig sal lay slm markaa nabiga caanihii u keenay ayuu rasuulku igu yidhi xalay caanihiinii ma cabteen idinku xalay markaasaa waxaan yidhi haa rasuulka ilaahay adigu cab ishrab wuu cabbay markaasuu cabbay markuu cabbay buu ii dhiibay wuu isiiyey markaasaan wuxuu yidhi rasuulka ilaahay cab waa cabbay markaasuu ii dhiibay nebigu sal alla alay wasalam yacni wax weeyaan markaan gartay nebigu sal alla alay wasalam in uu caanihii ka dhergay oo cokonaaday oo gaajadii ka baxday dacwadiisiina iyo baryadiisiina aan helay baryadii ahayd ilaahu ciddii i waraabisa waraabi oo ciddii yani wax weye cunto isiisa isii ilan isagaa cuntadii cabitaankii keenoo nebigii u waraabiyey oo caana ka dharjiyey ducadiina aan helay buu yidhi nebigu ku duceeyey ayaan qoslay buu yidhi xataa ulqiitu ila alardi qosol baan la dhacay buu yidhi ilaa aan dhulka ku dhacay baan qoslay buu yidhi markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ixdaa saw'aatika yaa miqdaadow kollay xumaanyaalkaagii mid ka mida un weeye maxaad samaysay maxaad ku qoslaysaa kolley waxbaad ku kacday maxay yahay waxaas markaasaa idhi rasuulka ilaahayow sidaa iyo saasay wax u dhaceen caanihii uu cabbay shaydaan wuxuu ugu sheekeeyey kadib murugta ku dhacday galgalashadii habeenkuu galgalanayey markuu gacmaha kor u qaaday nebigu yidhi wallahi haddan buu ku habaari doonaa qisadii buu uga sheekeeyey nebigu sal alla alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maa haadihi ilaa raxmatun min allah yacni waxa weye waa uu naxariis ilaahay buu yidhi ilaahay caanahan uu riyahan inaga siiyey
وأن حريص إله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها محاد يقول شيء ويدي لبدا إن صاحبنا وانكعن لهين مركاسي إن لعب لهين بالنبي صلى الله عليه وسلم مركاسا وحيري والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس رسولك إلهي بان ku dhaartay u aabayeeli maayo mar hadaad adiguna ii dheregtood caanihi cabti aniguna aan cabay cidii kale ka qadawayeelkeed buu muslim baa soo saaray bukhaarina adab mufradku ku wariyay qisadaasi cajabta badan waxay tilmaamaysaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu alayhi iyo deeqsinimadiisii iyo waliba siduu naftiisa uga bixinayo dadka walaalihii ugu doorayay ayay nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamaysaa waana qisadii ugu dambeysay ee xalaqada iyada ah aynu muxuu ahay ku soo qaadanay nabi maxamed salawaatu rabbi wasallam iyo deeqsinimadiisa wax iyadana laga sheekayn karo ama la cabiri karo ma aha rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa sidaasoo nin fog iyo nin dhow nin sokeeya iyo nin shishe gaal iyo muslimba deeqda nabigu waa wada gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bal ka waran nin mujtamaca noocaas saa u baahan ku dhex nool oo haddana aan weligii laga haynin maya laga haynin wax la weydiistay waa wax cajiiba wax la yaab la weeye laakiin waxay tilmaamaysaa يعني الشخصيات آد وسريسة إيه النف آد وسريسة إيه ضبيعات آد وسريسة إيه أوهباء وإلهي النبي محمد كوك الله دايسته صلوات ربي والسلام عليه أيه الماميسا بخيل نمو لقما أقونين أسقنا ما أقونين صلوات لقما الشيء قال يا مسلم تونا كمين الشيء بل آد بوقع عن فرنا سيئان لقى الشيكين كرينين وتصور كبني آدم كوردن بك بحسن أيه النبي قد يقسئها صلوات ربي والسلام عليه وحلقة ذي تضباد إلى أنه كأكل من حلقة السديدات سدا إيوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.